deeq jeesow oo ah tiktoker caana ayaa xalay waxaa lagala baxay isbitaal lagu daweynayay oo ku yaala degmada Yaaqshiid halka xilligan uu ku sugan yahay iyo dadka la baxay ayaa muuqaalkan kuula wadaagi doona ee soo dhawaada marka hore ninka dhalinyarada ah sheekadiisu waad la socotiin maalin ka hor ayuu shil ku galay duleedka magaalada Muqdisho shilkaas oo sababay dhimashada 5 ruux iyo dhaawac culus oo isaga soo gaaray intaas kadib booliiska ayaa gacanta ku dhigay waxa ayna ku soo bandhigeen saldhigga booliiska degmada Kaaraan iyaga oo sheegay inay gacanta ku hayaan balse ciidanka oo arkay dhaawiciisa iyo sida uu culus yahay waa ay sii weysay inay xabsiga ku sii hayaan waxa ayna geeyeen isbitaal ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir si loogu filiyo daryeel caafimaad waxaana halkaas xalay ugu yimid ciidanka taraafikada oo kala baxay isbitaalka kadibna geeyay xarunta fiish taraafiko koor inta aysan la bixin dhaqaatiirtu waxay ciidamadu ku wargeliyeen inaysan suuragal ahayn bukaankan in xilligan isbitaalka laga saaro maadaama uusan helin daryeel caafimaad oo ku filan daawooyin ay u socdaan balse waa ay ka biyo diideen oo xabsiga ayay u taxaabeen oo xilligan aan kula hadlayo waxa uu ku xiran yahay xarunta fiish taraafiko ee magaalada Muqdisho